baan cadaynteeda keeni doonaa haddii alla yidhaahdee waxaa jiray laba arrimood oo isgarab socota oo midna ay tahay nadari iyo afka waxa laga sheegayo midna oo dadka caamada ah loogu warramayo midna ay tahay waxa lagu dhaqmayo ardada lagu tarbiyeynayo qawaacid ee lagu la raacayo tan qawaacid la raacayo waan ku sheegi doonaa laakiin tan erayada afka laga leeyahay علومنا علمنا مقيد بالكتاب والسنة كتاب في السنة بان كحرناها حقها الله الراعو شريعتها الله إلاليو انت وانت عامدا لغو سيريه ددوينها المسلمين مكستا لغو ما ويلينيوي وحنا كما جيران inayna wax ka jirin guud ahaan waa u sheegi doona gaar ahaan tariiqa alqaadiriya iyo wixii Sheekh Abdul Qaadir afka uu ka dhigi jiray iyo awraadu dajiya tanaaqudka ku arki doonta lafteeda anu qof hebel markii wixii jiraan in hor dhigo hebel maxaa wuxuu sheegay loo sheegay hadhow hay dhina laakiin masaadir talaqigoodu waxa ka ahaa al-kashf kashfigu waxa weeye bilowga marka uu yahay baa waxay leeyihiin ninka suufiga ah markuu dadaal badan sameeyo dunida asaga dhaxbaxo dumar iyo caruur ka fogaado habeen iyo maalin cibaado ku soo jeedo calooshana uu gaajeeyo hurdadana yareeyo naftiisana in badan la dagaalamo culum iyo macaarif badan baa aqoon badan baa u furanta ilaysya badan baa u baxa qalbigiisa aayaadka quraanka markay soo maraan macaani buu ka fahmaa antii kutubta iyo tafaasiirta lagu sheegay ahayn macaani buu qalbigiisa ileysyada u fahmaan macaanidaas ay fasirayaan oo tafsiirul ishaari la yiraahdo baabu tafsiir marka laga hadlayo waxay yiraahdeen dadku waa laba dad culumta ay tafsiirka ku fasirayaan ka qaatay dad kale iyo dad dhintay oo yiraahdeen inma yatalaqawna tafsirahum wa ulumahum mayitan an mayitin hebel bay sheegay oo dhintay hebel oo dhintay baa u sheegay annaga laakiin waxay yiraahdeen markuu safaa'ul qalbigaagu nadiif min ad-dunya ka noqdo jirkaaguna uu si fiican ilaahi taacadiisa ugu khuduuco qalbigaagu rabbi buu la sheekaystaa rasuulkana waxbuu ka qaataa sadarteed macaanida tafsiirka qalbigaaga ku yeerin qalbigaagana wax badan oo alwaarid la yiraahdaa ku soo dhici waxyaabaha ku soo dhacana shaydaan meel uga ma banaano anwaar baa buuxisay oo yaa u sheegay anwaar buuxisay Allahu a'lam qalbigaaga anwaar baa buuxisay waa waarid xagga rabbi ka yimid wuxuu noqon karaa nuur ilaahi qalbigaaga ku tuuray wuxuu noqon karaa malag wuxuu kugu soo yiri waxay noqon kartaa fayd iyo dux xagga nabiga kaaga yimid wuxuu noqon karaa haatuf khayr oo lagu la hadlay kashfi baa qalbigaagu nuur ku soo degi markaas waxaad ku qanci waxan inuu xalaal yahay ama xaraam yahay ninkii xadathana fulan aadaay ilmigiisu waa sanad dheer oo mayitun an mayitina way ninka laakiin qalbigiisa iyo waxa uu rabbi wa keenay qaata waa sanad caali oo mubaashir oo toos oo cidna rabbi diin dhaxaynino xadathani qalbi ar rabbi way halkaasoo kashfigu ka bilowda waxay ilaahay marka kashfigu waa wax macnihiisu halka ka bilowdo koonka fahmaysa cirka iyo daruurahaas waxba ka dhaxaqrinaysa qof baad arkiyo waxba qalbigiisa iyo gudihiisa ku sawirmaya taada aayad quraan aad soo mariyo macaani dadkani aynan fahmi karin oo culamaa ul haqaa'iq wal baatin mooyeen علماء الظاهر وحتى صحابيه محدثين علماء كميه انا غران كريم وحبا كو يفتيم النور با كاغا بخي قلبك النور بو وطايو markii quraanka iyo kownka lagu qabto gudaha waxay dadkii kale indhooda mugdi saarayaan aad gudaha ka arkay nuur yaqdifuhu Allah fil qalbi wa yiraahdo kashfi baa la yiraahdaa baabkaas kaasi waa meel طريق shar lagala kulmo iyaga saasa kashfigaas la tusayo ilhaamtaayo taa xujo ma noqon kartaa ilhaamtuna waa nooc kashfiga kamida way laakiin maqaamka hadba suufigu uu joogo
بكشفgiisa iyo ilhaamkiisu noqdaa darajaad sare markuu gaaro ilbiriqsi uunka waxa dhacaya kama qarsoomo nuur ilaahi uu ku shaqeeyaa waxa looga jeedaa waxa buxurkan kugu sharxi doonaa inta wixii ka sii badan laakiin ilhaamkani xujo ma noqon karaa sharcan culamaa shariica maya markaasuu wuxuu yiri saaxibu alfiyat maraq as-suud wuxuu yiri وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء إلهام الأولياء الشيخان الإنسان بالعراء بنان كان لو توريا الدين لو ما قادن كرو نكن ده كله كتاب في القرآن كشيء زي ذاك حب هذا السوق هذا ولا وحال بعض يحكى قاطان سيدا أي شيء يان النبي عليه الصلاة والسلام أما هردو وحقوق الشيخ أما السوتشيد بي وحقوق قاطان والنبي ii sheegay soo hada wasiiqadii la qaybinayay khaadimu nabi baa nabiga ku riyoodayo saayeelu yiri luqad kasta lagu turjumay ma arag ninba wuxuu ku leeyahay waan riyooday nabiga ku riyooday saasuna yiri nabiga way ka qaataan ninna wuxuu ku leeyahay nabigii baan anoo soo jeeda arkay ولذلك ذهبي مركو sheegay في ميزان الاعتدال نبو كشيكي رتن ليرادو هندية جوغي ميزان الاعتدال حرف الراء يكون نقضة رتن الهندي وما أدراك ما رتن شيخ دجال بلا ريب بيلو عشان في كتير ومعاه داعي ظهر بعد 600 قرن اللي حد كذب وقرن التضواب وصباحي فدع الصحبة صحابي يقول النبي قال لك كل ما يقول شيكتين والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله هذه عبارة الذهب لا يريد على الذهب ساعتين هذا ميت جوجا wuxuu dhigay nabigiiba arkay nabigiiba yimid nabigiiba saayiri warada nabigu saxaabadu markay isleenayeen calayhi salaatu wasalaam ee Umar markii la dilayay ma soo bixin oo Usmaan markii la dilayay ma soo bixin oo Ali markii la dilayay ma soo bixin oo saxaabadu markay isleenayeen ma soo bixin oo markii intii Kaabada la isku laayay Zubayr lagu weeraray min janiiqda Hijaaz ku ganay Kaabada la gubay ma soo bixin وهذا وذاك كان دورك عللا وكل ما يمحي تاعي يدنا وبابو سيسا كو غادي عدن واركay nabiga inuu yahay طريقه صدحاده ay wax ka qaataan ay diin ku salayaan waa nin khadir la yiraahdo way khadir baa arkay khadir baa ii sheegay khadir baa doo yimid ilaa dadkii oo dhan laga dhaadhiciya khadir baa arkay kartaan oo markii dambe waxaan la dhigi jiray labada suul mid buusan laf ku lahayn marka ruuxa la yaabta salaanto lafta saasulka u tawaad sallallahu alayhi khadir way ku dhig waa qaanay kaliin ugu hayni inaad nala qabijiso shaal walibii sirida nin kasto hadaba iyaga oo wax raba wuxuu ku leeyahay khadir baa saay ugu jiri khadir nabi maxamed mu iman alayhi salatu wasalaam intuu jihaad ku jireena khadir baa yimid oo jihaad la galay lama maqal maalikuu baka ka cararay ee cala quraysh caylsanaysay ee madaxiisa 100 geela la saarayna khadir oo yimid oo garab qabtay lama arag wal khadir kan anbiyadii iyo diintii gargaarkeeda aanu imanin in wadaadadu duurka la wareegayeen lana arkin muxuu yahay khadir taariikhdiisa daaratiya xaqiiqadiisa inuu dhintay inuu nool yahay kitaabka al-Hafiz ibn Hajar akhri az-Zuhr an-Nadir fi naba'i al-Khadir salaadu qiba badan buu leeyahay waxaan uu inay tahay uu kaga hadlayo وانا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى isaga baa ka sheegtaan marka ka dacwadaan waxyaabaha ay ka qaataan waxa kamida marka oo inta kaliya ahayn haatuf baan maqlay waa la ila hadlay waxa la hadlay majimba ma shaydaanba ma mu'minba ma taqaanid adu haatuf baa ila hadlay haatuf baa wax la iigu sheegay sababtoo ah jinka mu'miniinta inay wax ka qaadan karaan mu'min baanay haduu ku yiraahdo yaanu arkin oo san xaqiijinin baa kamida mabaadiida marka haatuf baa ila hadlay haatufka ma malaa'ik ba markii dambe waxay gaareen jibriil baanu xalay wada fadhinay aniga jibriil baa sheekaysanay nin hadaba nool reer wada qabsata tanoo ciise sheeg soo adeer kama reer buu soo martiyay waan aqaanaa ninka nolol baan ku ogaa reer buu soo martiyay markuu reerka soo martiyo
habeenkii gabdho yar yar baa loo soo diraayo duuga waxaan gabar yar ahayn ma duugto gabdhihii mid kamida wadaadkii iska tagayay baa uur ku soo baxay waxaa la abahay yirina waxan muxuu yahay sheekhi bay tiri sheekhi way sheekh hadii dirtay duugayay sheekhi way balaayay sheekh wuu qaydiyay oo duqi isagii baa maqloon meelaha ka dheeray isagoo ordigu yimid xaasayga maxaa laga rabaa ninkii abahay waxana qoxo gabadheeda ku meeriyay xiri jibriil iyo sheekh jilaani bay meeriyay jibriil iyo sheekh jilaani waa gabadhan ii soo meeriyay marka jibriil baan is aragnay iyo jibriil baa saa ii sheegay iyo mid kamid ahna gabadh buu qabay way umushay walaasheedoo ka yar baa loo soo diray inay umul bixiso ninka haddaan sheega waa garanaysaan awliya u taqaanaan anuu laakiin dadku dhalay baan arkay gabadhii yaray buu ureeyey warwaa sidee baa laba walaalaha sidan jibriil baa ii meeriyey gabadhii uu sidaa ku ureeyey wiilkay dhashay baan aqaanaa oo anigu arkay wiilkay dhashay gabadhii yarayde ureeyey jibriil baa meeriyey leeyiri baan anigu nolol baan ku ogaa waagii ugu dambeysay 89 horaanteedii 89 bilaad dhamaadkeedii waa Mombasa ugu dambeysay soo jooga inta uu dhaafay baay marka jibriil baan la hadlay iyo malag baa ii waxyooday haatuf baa ila hadlayna waxba la qaataa waxa kale oo jira masaadirta wax laga qaato wax la yiraahdo al-israa wal mi'raaj waliga al-israa wal mi'raaj nabiga la dheelmay mooyaane awliya la dheelmay ma maqasheen israa wal mi'raaj ku waxay ku leeyihiin ruuxda waliga fi manaamin aw yaqdatin isagoo soo jeeda aba hurda bay ruuxdiisu tagi markaasay samaawaadka koray aadi adduunkaasay soo tibaaxiyo samooyinkay in ka soo mari asraarta caalamka iyo xogtaasay soo qaadiyo keeni lawxul mahfuudkay saa u soo dulmari ambiyadii samaawaadka jirtay bay soo mari malaa'iktii iyo meelihii la dhawaafayo dhan bay cagta soo marin wixii xog iyo khabar iyo culum iyo asraaraha bay keeni al-asraa wal ma'aarij baa leeyahay mi'raaj awliyada lafteedu nabiga wuxuu kaga duwanaabay kuleeyihiin ruuxdiisa iyo jismigiisaba israa iyo mi'raaj baa loo sii qaaday laakiin awliyada israa mi'raaj ruuxi ay leedahay mid badani oo shirkeeda ma laha farqigaas lagu keenaya marka tiraawidi kana manay baa noqotay jibriil waa sii qaaday jibriil soo qiimaan ka taballaha saawan ma waxa kamid ah waxyaabaha ay wax ka qaataan masaadirta waan riyooday Soomaalida arag qubuurtan tira badan hada qabru Zaynab bint Rasuulillah Dimashq mid baa ku yaala waan tagay asalkeedu Madiina ay ku aasan tahay oo nabigoon nool bay dhimatay meelo kalena kuwa kala la igu sheegayo qabru Zaynab oo Masarna waa la ii sheegay anu ma tagin qubuurtan sideedaba waxay ku badatay Sheekh Hebel baa intaas oo meelood ku aasan Soomaalidan maqal hala yaabina waxa jira qaacida iyo system riyo ku salaysan oo la raaco nin wadaada riyoon sheekh Hebel ahaa meel hebla inay isku arkeen buu ku riyoon meeshii uu calaamad qabri baa laga taagiyo Sheekh Hebel maadaama lagu arkay qabrigiisa baa laga dhis hortaas ku bataan qubuurtani riyada iyo manaamaadka shaab isxaaq shaatibi baa ka sheekeeyay rahimahullahu ta'ala dadka aan wax macnaheeda diin ku sareeyay markuu ka hadlayay wuu ictisaamku wuxuu ku yiri wad'afu haula ihtijajan inta aan soo sheegnay qolada ugu daliil xun ugu tabardaran qawm istanadu fi akhd al-a'mal ila al-manamat qolo ku tiirsado amalkooda ka qaatay hurdo iyo riyo wa aqbalu wa a'radu bi sawabiha waxbay sameeyeen waxna way ka jeesan hurdo sababteed waxay riyo ku arkeen فيقولون رأينا فلانا نكي فلانا هاي وناكسنا بان أرقني فقال لنا اتركوا كذا وحنا يري وحا اسكدايا واعملوا كذا وحانا السماء وحاسا إذن صدقاء تلاقي ناس وصعطوا وحاسا كل رياضة إن لقصوا من حولها لو حاوي حولها فانا كنا بعدين واركتين وحو إليه مركب ويتفق مثل هذا للمتمرسين برسم الصوفية أرنتها وحياد وقد على قوة علامتها الصوفية وطا وربما قال أحدهم وحدعك تمتكود لوكو يراه رأيت النبي في النوم فقال كذا وكذا نبي عن أركي هردكو أركو ساسو يجري وأمرني بكذا ساسو أمري
مكاسر ريادي كعمل فلي فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة حدود الشريعة ضمن وكتشة سنة وكتمل هذاك ولا قال الوقت قدوة بسم الله مسألة أنت وجد بيا وحاوية مسادرت هذا كجد عقائدك تسمى تصوفه أما صوفية لقصوا بالله قرنه سديدات وحيابا أساسيات عقائد كأهبات له وحبضنا كذا شيء وحيابا يكمل يسيهين وعموم كودو أما غالب كودو ويقبعن لديه كرانا ويتشيران وحيابا أين هلكا وذا قارسي سنين ويتشيران لكن قولنا عن قارسي سنين انت بضن قولنا قارسي سنبي أقيل ديان هذا دور الرمال وحي كرم يسيهين عن قودهان كود المرء كو إلهي محي كرم يسيهين marka kutubtooda lagu noqdo ashcaartoodii iyo xalaqaadka dhikrigoodana la akhriyo qayb kamidii madrasatul hallaj al-Husayn ibn Mansur iyo madrasatul hulul ahayd bay rumaysan yihiin al-Hallaj waxaan soo marnay